fiican abuuray way jawi fiican abuuray waana wax tayo leh oo loo aayo xalqal ah maalmo lagu moodi karo haddiisan zaman badan ba aan lagu moodi midna waxa waaye waa wax fara badan xeerka marka waxaa la yidhaahdaa xeerka ballamaynta wax niyadaada ka soo kacay oo yar ayaad ballan qaadaysaa maalin ayaa samaynaya ood samayn kartid kabacdina waa kordhinaysaa waxaad kordhinaysaa tirada ayaad kordhinaysaa marka hore waxaad ka bilaabaysaa tiro yar oo leh ruux fiican wax dadka qalbigooda dejinayo isku keenayo maaragtay ka dhigayo kuwa u wada shaqeeya maslaxada caamka iyo maslaxada gaarka labadaba midda adduunya iyo midda aakhiro labadaba waana wax yar yaad keenaysaa waxaasaad ballan qaadaysaa bacdina waa keenaysaa markii aad keenistaada ay badato ood ka adkaatid intaa yar ayaad wax yar kale ku kordhinaysaa waxaad kordhinaysaa tirada saasaad u wadaysaa marka ilaa aad ka gaartid heer wax tiro badan oo tayo fiican abuurana jawi wanaagsan xagga fikirka iyo dareenka iyo dhaqanka iyo horumarka insaaniyada waxeeda dhow iyo waxeeda bog labadaba waxaad gaaraysaa marka dambe heer wax tiro badan oo tayo leh jawi fiicanna abuura la rabo jawi fiican abuura qalbiga dadka isku wanaajiya waxna aanan u baahnayn in laga qaado shaqadaada ma qoraal haddaa samey sidoo kaleeto waxna in laga qaado ma baahna waxna in lagu daro ma baahna sidiisu kaamil ku yahay xeerka isagan waxaa la yidhahdaa khiyaaray xeerka dahabiga ah wasadka ama dhexdhexaadka dahabiga ah ayaa la yidhaahdaa waa wax aanan u baahnayn in wax lagu daro ama wax laga qaado sideedii kaamilka ta waxaana uma baahna in lagu daro waxaana uma baahna in laga qaado ninka waxaan dhahnay xeerka ballamaynta waxaa saldhig u ah wax wanaagsan oo qalbiga hagaajinaya tayo badan isla markaasna tiro badan waana marka hore waxaa horeynaya qalbiga iyo tayada tiradana xoogaa yar ayaa mar walba ugu daraya marka hore ballan qaad inaad samaynaysid wax qalbiga wanaajinayo oo yar kabacdina badi ilaa aad ka gaartid inaad samayn kartid wax tiro badan oo tayo leh qalbigana dejinayo ilaa ay caado noqoto markaas adigana waad macaashaysaa dadkina waad macaashay xeerka marka waxaa la dhahaa xeerka ballamaynta markii wixii aad ballan qaadidna wax yarna ay yihiin waxaa lagaa rabaa inaad samaysid haddaadan samaynaynin waa inaad isciqaabta marka adoo ciqaabta ka hortagaa shaqadaad qabanayso haddaad wixii samaysidna hadda wixii aad rabtay inaad samaysid waaye meeshii aad rabtay inaad gaarto ayaad gaaraysaa adduunku wuxuu ka shaqeeyaa diintuna inoo sheegaysaa ajar adduunkan waxaad kala tegaysaa waa camalkaaga shaqadaada waxa kale waa laga tegay marka inta fursad haysid shaqo fiican qabo iimaan leedahay waa iimaankana shaqo fiican ku xigta xeerkaas waxaan dhahnay marka isaga waa xeerka ciqaabta xeerka abaalmarinta xeerka ballamaynta xeerka ciqaabta iyo abaalmarinta hadda anaga waxaan aan samaynin oo kaleeto waxaa waa dadweynaha inayna arkaan waay hadhow dadweynaha weji agtooda kuma yeelanin haddaan intaan ballan qaadno ballantiina kasoo bixi weyn waxa ugu weyn oo insaanka lagu cabiro waa awoodda uu leeyahay inuu ballan galo kana soo baxo marka waxaa ugu fiican marka horeba inaad ballan gelin
haddaad gashidna inaad kasoo baxday waa inaad barataa cilmiga balan ha samaynin haddaad samaysidna kasoo baxa qaabka ugu fiican loo samayn karana waxaan dhahnay waxaa wax yar samee oo niyadda ay fiican kabacdina badi ilaa aad ka gaartid inaad awoodi kartid inaad soo saartid wax tira badan oo taya leh qalbiga lagu roon muslimiinta iyo insaaniyada oo dhan iyo wax walba oo runtii yacni beer qoyan gabadhii gilada ahayd oo reer banu israa'iil oo jirkeeda gadan jirto jannada waxay ku gashay ayay biyo siisay marka insaaniyada oo dhan wax dan waa inaad ka shaqaysid iyo bal wax walba oo beer qoyanba inaad wanaagooda ka shaqaysid waxaasoo janna ku galaysid shimbiraha janna inaad ku gashaa marka bini aadam intuu waxaan isku arkay marar badan garabkayga inaad aragtaan in kala ma aqaan waxaan jeclahay inaan kor u qaado markaan saa sameeyo marka ma fikiri karo waa inaan dejiyo intaasaan fikiri karo marka walaalayaal waa halkaas ay kasoo gabagabooyeysaa marka arrin kale noo hartay waxaa waaye arrinta ah standardka ama micyaarka lagu cabirayo shaqadeena marka waxaa lagu cabirayaa inay tahay shaqadaani shaqo qalbiga insaanka u fiican u tahay oo ka dhigaysa insaanka insaan wanaagsan qiimo ku daraysa qofka noloshiisa marka weekly qorshaheena isbuuciga ah waxaa ku jiraya astaamayaal looga baahan yahay inay shaqadeena kasoo baxdo standard astaamayaashaas waxaan ku qoraynaa usbuuc qoraqo qorshaha usbuuciga ah kaas ayaanan waxaan isku siinaynaa grade ama heer waxaan leenahay eebaa heshay ama a ama ba ama a ama da ayaad heshay waxaa la fiirinaya waxa aad tiri waxaan ayaan samaynaya iyo waxa aad keentay ayaan isku barbardhigay waxaan marka haddii wixii aad keentay ay isku mid yihiin waxaad helaysaa a haddaysan isku mid ahayn waxaad helaysaa ba haddaysan isku mid ahayn haddii meesha isu ku jirin buu dhacda markaa balantii waad kasoo baxday laakiin ma aadan guulaysan marka waad isku dayaysaa haddana halkaas ayaa horumarka dhacaya teknolojiyada systemkaas ayaa ku dhisan oo la yidhaahdo feedback mechanism qabka shaqadii u qabtay waxaa laleeyahay shaqadaad waxaa hortan laisku raactahay markaas kadib ayaa shaqadii la cabiri kara insaaniyaduna waa sida